sida hadda aan nahay wax qurxoon maaha aniga soo madaxweynihiin maaha wax qurxoon maaha markaan madax is aragno oo hadda la og yahay dalka inuu kaa u qaybsan yahay oo dhibkaan u jiro iyo nin dadkiisii midaysan yihiin dhaqaalihiisii cirka u marayo dowladdiisa u shaqayso dakhligiisa uu badan yahay xiriirkuu la leeyahay caalamka lagu ixtiraamo iyo aniga isku meel ma istaagi karno macnaha hoos baa lagu fiirin waxaan ahay waxaad tihiin haddaad wanaagsan tihiin anna waa wanaagsana waa intaas marka wixii naga hadlaan waa naga hadlaabeen ilaahayna noqonno waqti badan buu u badan yahay maanta yaan la fiirin yaan la oran maanta haddaan wixii waayo nin kale isu waxba helin yaan la oran inaad tiraahdo allah kuu calfo walaal waa ku siiyey waa kuu quuray adna biri ii quur oo kuu tanaasuli intaas way wax lagu kala hormaro wax badanna lagama horeeyo maxaa yeelay soomaali baan nahay dad firfircoon baan nahay dad isleh baan nahay dad dalkooda kheyraad badan yaan nahay dad aqoon leh baan nahay dad islaanaan nahay dad qablaan nahay muddo yar yaan kusoo noqon karnaa muddo kooban yaan kusoo noqon karnaa caalamku waa la kala hormaraa haddii hadda aan 20 kale ku darno waana laga tegayaa si aadah yaana looga tagaya aan ka daba tegi karin haddii lagaa tagana waa lagu gumeynayaa dhaqaalaha la isku gumaystaa xoogga ciidanka la isku gumaystaa dowladnimada la isku gumaystaa deganaanshaha siyaasadda la isku gumaystaa